بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا ورئيس جارة وعلى يلنا إنجنير عبد القادر يوسف حسين معمولها شركة تاور إنجنيرين شركة أي حافظ كهير جلنيس مجال قال كعيو إن مضنا مركوه معمولها شركة تاور إنجنيرين وكما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدوك سلام يا كرم علينا يا مركوه رئيس waraysigan ay qaadaysid iyo booqashada xafiiska Tower aan ugu soo booqatay sidoo kale waa kaaga macluumaad guud ahaan barnaamijyada wax ku oolka ah gobolka iyo guud ahaan Puntland ka wadid magacaygu Cabdiqaadir Yuusuf Xuseen waxaan in muddo ku noolaa wadanka Ireland halkaas waxbarashadeedii undergraduate iyo postgraduate labadaba ku sameeyay waxaan degree ku sameeyay civil structural engineering waxaan muddo 4 sano u shaqeynayay structural company oo kambaniyada ka mid Ireland at the same time waxaan hadana u shaqeeyay engineer xuduudda lahayn engineer soo borders oo aan markii dambe ka noqday chief executive officer alxamdulillah waxa hadana sii watay waxbarashadayda oo postgraduate keygii oo master of climate change policy media and society masterka isbeddelka cimilada siyaasadda iyo arrimaha bulshada oo aan researchigay ugu horeeyay aan kala shaqeynay wasaaradda isbeddelka cimilada iyo deegaanka iyo communicationka Ireland oo markii dambe si toos ah ula shaqeynayay European Climate Action oo kamid ah isbeddelka cimilada waxyaabaha noocaas oo kala ka bacdi waxaan kamid noqday aasaasiyaashii shirkadda Tower. shirkadda Tower Engineering waa shirkad nooceeya shaqooyinka ay qabatana bal faahfaahin naga si ama noo sharax. shirkadda Tower waxa ku midoobay ganacsato Soomaaliyeed hantiilayaal Soomaaliyeed oo kala jooga dal iyo dibadba kuwaasoo go'aansaday inay maal gashtaan real estate barnaamijkan wuxuu socday muddo 2 sano ah real estate kan investment lagu sameeyay meesha la maal gelinayo waxa meelo badan research laga sameeyay wadanka Kenya Nairobi caasimadiisa Nairobi Jigjiga Muqdisho Hargeysa iyo Garowe gaalkacyo iyo Boosaaso marka ganacsatada ka soo jeeday gobolka Mudug waxaan soo gudbinay proposal ah in meesha ugu habboon ay shirkadu maal gashan karto ay tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo siyaabahan ku dooranay iyo waa dib ka sheegi doona ama marka shaas groupkaas ba asaasay hantiilayaashaas oo hantidooda isku geeyay ka bacdina asaasay shirkadda Tower Engineering Company oo aan daafurnay 25 bishii November waa maasan ma jiraan shaqooyin aad hore u soo qabateen marka laga reebo shaqada hadda awadaan ee magaalada Gaalkacyo uga hirgelinaysaan xaafadda Wacan Village shirkaddu markii ugu horeysay waxa ahaa investment ka bacdina waxa la sameeyay shirkadda magaceeda la yiraahdo Tower mashruuceedii ugu horeysay fulinaysa waxa la yiraahdaa Wacan Village waana mashruucii ugu horeeyay ee shirkaddu sameeyso oo marka mashruuca hadda shirkaddu wadanka hore uga shaqeyn jirin iyadoo dhan waxa la laanji gareeyay 25 bishii November waxa sheegtay in markii ugu horeysay mashruuc ka hirgelinaysaan dalka Soomaaliya maxaad ku doorateen mashruucan ballaaran inaad ka hirgelisaan magaalada Gaalkacyo waa su'aal muhiim ah Gaalkacyo waa magaalo center u ah Soomaaliya waa magaalo ay dhibaatooyin badan ka dhaceen waa magaalo soo kobcaysay oo ka soo kabanaysay dhibaatooyin badan waxa jiray 2 maamul goboleed baa ku wada yaala waxa sameynaysa magaalada integration aad u weyn sadexgal oo magaalada labada dhinac qofkii taga suuqa magaalada dareemi kara horumarka magaalada sameynayso amnigaas ka sokow magaalada waxay gobol ku soo kordhay takad weyn oo muhiim u ah real estate ka iyo construction ka maadaama materials ka isticmaalayno xoogooda ay dibadda ka imaan doonaan iyo qurbo joog badan oo dalka ka maqan oo danaynaya in gobolka ku soo noqdaan waxa kale oo kamid ah in competition weyn uusan ka jirin magaalada Gaalkacyo markii loo fiirshay magaalooyinka kale oo kale sida Nairobi Muqdisho Hargeysa iyo Jigjiga marka Gaalkacyo waxa isleenahay waa meesha ugu habboonayd projectiga laga hirgelinayo xaafadda Wacan Village ee aad ka hirgelinaysaan magaalada Gaalkacyo dhawaan ayaa soo bandhigteen bal faahfaahin naga sii waa xaafad noocee xaafadda waa Wacan Village baa la yiraahdaa waxaan launch gareynay isku mar company-ga iyo xaafadda aan dhisayno insha Allah 3 November xaafadda waxaan ka dhisaynaa magaalada Gaalkacyo dhinaca caska fog ma aha waa meel xaafadii magaalada u gaadhay runtii dhulku wuxuu ahaa dhul aad u qaali ah sababta aan ku dooranay waxa weeye
dadkii inaysan ka fogaan surface-kii magaalada uga baahnaayeen hadday noqon lahayd waxbarashadii hadday noqon lahayd suuqii dukaamaysigii iyo ehelkoodii inay ku xirnaashahoodii saas wuxuu u noqday dhulku dhul aad u qaali ah oo haddaan ka dhislayn meel magaalada aad distance fiican u jirta waxay noqon lahayd caqabad aad weyn marka xaafaddu waxay ka kooban tahay 74 guri oo residential deegaan ah iyo qayb kale oo commercial ah qaybta commercialka waxay ka sii kooban tahay qaybo kale ah ma aragtay club house-kii gym-kii swimming pool-kii school-kii waxbarashada caruurta iyo kuwii dadka waaweyn labadaba iyo qaybihii dukaamaysiga xaafaddu intaas ka kooban tahay waxayna u dhowdahay isbitaalka Dhagacade waxay u jirtaa 1 kilomitir iyo xoogaa injineer xaafadda waxaa sheegtay inay ka kooban tahay qaybo kala duwan su'aal ahaan A B iyo C maxay ku kala duwan yihiin xaafadda residentialka waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo ah Villa A, Villa B iyo Villa C. Villa A waa guriga premium-ka ah oo aan ugu talagalnay dadka VIP-da lacagta haysta inay gataan waa guri ka kooban G+2 3 dabaq uu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay 6 dabaq guryaha dhisayno oo dhan si guud ahaan waa Arab style oo Islamic style oo inaan kala saarno dadkii family-kii martidii iyo asxaabtii marka guriga wuxuu yeelanayaa privacy badan oo ka duwan meelaha kale guriga laftigooda privacy way kala yeelanayaan dariska ahaa waxyaabaha kale guriga eedo ka kooban yahay waxa kamid ah 6 uu ka kooban yahay 6 qol waxa ku jira swimming pool-kii waxa sidoo kale ku jira laba qol oo fadhiyo hoose laba fadhi qol dabaq kasta wuxuu leeyahay fadhi gooniya 3 dabaq oo 3 qol oo dhexe iyo 2 qol oo koraysa iyo qol hoose aan ugu talagalnay mar walba inay dadka ma aragtay family kala nool haday noqon disability ama dad elder qof aan fuuli karin jarjarto kale guriga ee intaas ka kooban yahay guriga ku xiga oo dabaqada dhexe ah Villa B asagana wuxuu ka kooban yahay 6 qol waa guri aan ka dhicin guriga eeda ah oo kale lacagtiisuna aad bay uga jaban tahay guriga eeda oo kale guriga waxaa jira affordable ah oo guri Villa C guriga Villa C asagana wuxuu ka kooban yahay 4 qol iyo 4 fadhi saddexda nooc bay ka kooban yihiin guriyo features gooniyana way yeelan doonaan oo u gaar ah xaafadda Wacan Village qaab noocaya ayay ku dhismaysaa ma shirkadda ayaa dhisayso waa la iibinayaa mise qof walba ayay u furanta xaafaddu waxa weeye waa guri iib u jooga guriyo la kareynaya ma aha boqolkiiba boqol guryaha meesha laga dhisayo commercialka markii laga reebo qaybta deegaanka waxaan ugu talagalnay inaanu iibino guryo oo dhan waa iib marka qaabka lacagaha loo bixin doonana payment plan-kuna waxay ka kooban yihiin ilaa 3 qaybood qaybtan caadiga ah oo mortgage-ka ah bangiyada oo kale in qofkii ku xirno oo 5 years payment plan oo kale u qaato bangiyo badan baa xiriir leenahay iyo sidoo kale inuu company toos ula direct gareeyo ula soo xiriiro oo marka company-guna wuxuu siinayaa ilaa 3 category 3 ma aragtay plan uu ku bixin kara lacagaha marka qofkii danaynaya wuxuu toos ugu imaan karaa xafiiskeena magaalada Kalkayo dadka doonaya inay xaafadda maal gashadaan ama guriga ka iibsadaan qaab noocyo ay la soo xiriiri karaan horta waxaa jirta guriga ma iibsashada iyo investment dad waxaa jira nala soo xiriiray oo qurbo joog ah oo dalka dibadiisa maqan oo doonaya mashruucaas inay ka faa'iideystaan iyaguna invest gareystaan marka waxaa jira qorshe investment aan ugu talagalnay cidii maal gashanaysa Wacan Village oo kale qofku wuxuu maal gashan karaa guryaha tower dhisayso qaybo kamid oo maal gashan karaa wuxuu noola soo xiriiri karaa waxaan leenahay website iyo email oo nagala soo xiriiri karo telefoonno oo aan social media oo dhan ku jiro kulligood laga jawaabayo qofkii loo soo xiriiro oo dhan waxaan rabaa inaan wax yar ugu sheego comparison yar sameeyo guryaha dhisayno iyo guryaha magaalada laga dhiso guryaha dhisayno anagu waxay ka kooban yihiin guryo aad aan rabno inaan next generation ugu talagalnay ama la jaan qaadi kara 200 sano ka bacdi guryo dhisnaan kara guryaha waxay leeyihiin waxa kamid ah smart system oo ah haday noqon lahayd electroniga haday noqon lahayd gurigii qofkii ma dareemayo inuu ku jiro xabsi guryaha magaalada oo laga dhiso kale inta badan guryaha hadii albaabada iyo daaqadaha la xiro waxa dareemaysaa qofkii inuu ku jiro xabsi guryaha waxay noqonayaan guryo natural light fiican leh guryo sustainable ah waa isku dayeynaa inaan yareyno carbon emission laftigiisa laakiin waxaan isku dayeynaa inaan reduction sameyno zero carbon emission ma gaari karno laakiin xaafad sustainable ah
sidoo kale xaafad energy sufficient wax la yiraahdo isku filnaansho xagga energy-ga uusan noqon in waxa jira guriyuhu ayaga safe gareeyo korontada haddii korontadu ay qaaliga magaalada waxyaalaha qaarkood waxaa ka mid ah gurigii aan u diyaarsanayn qaabkii energy u safe gareysan lahaa xaafadu waxay leedahay oo kale air flow fiican oo in hawadu si fiican gurigii u dhex marto kala qaada ugu talagalnay baa jira iyo aad features kale aad u badan marka waa santahay Wacan Village waa xaafad la wada sugayo goorma ayaa dhismaheeda si rasmi ah loo bilaabayaa mashruucu wuxuu qorshihiisu yahay inuu bilowdo 1 February dhismaha ugu horeeyay guriga ugu horeeyay muddadii hadda aan launch gareynay 2 bilood ku dhawaad waxaan ka shaqeynay preparation site-kii iyo hawshii inaan bilowno waxaan bilaabaynaa hadii la haydmo 1 February dhismihii ugu horeeyay waxaan rajaynaynaa inuu sida qorshuhu yahay hadduu sidiisa u fulo inuu muddo 3 sano iyo 6 bilood ku dhamaado project-ku oo dhan qaybta commercial-ka iyo qaybta residential-ka labadaba dhawaan waxaa qabateen munaasabad aad ku shaacinayseen in xaafadan laga hirgelinayo magaalada Gaalkacyo qaabkeedu uu ku cusub yahay gobolka Mudug iyo qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee gobolka joogta iyo dadka dibadda jooga qaab noocyo ay u arkeen ama u falceliyeen dadku waa laba nooc dadka qurbo joogta badanaa wax falcelin weyn kaba ay sameyn oo waa dadka ugu badan oo soo interest gareynay guryaha inay naga gataan qolkii waxa oran karnaa 80 dadka guryaha naga soo dalbaday inay naga gadanayaan waxay u badan yihiin qurbo joog laakiin dadka localka Gaalkacyo waxay uga duwan tahay magaalooyinka kale mashruuci ugu horeeyay oo noocaana laga fuliyo runtiina waa mashruuci ugu weyn abid magaalada Gaalkacyo laga fuliyo marka laga soo tago gobolka si guud dekada Garacad mashruuci ugu weyn ee laga fuliyo magaalada marka dadkii xogaa waxay leeyihiin waxaana soo bandhigtay meel sarcaad baa la sameyn karaa dad gobolka oo kale laakiin magaalooyinka kale oo kale sida Garowe iyo Muqdisho iyo wixii caadi bay ka yihiin way real estate badan baa ka jira marka gobolkii falcelintiisu waxa weeye maadaama wixii ku cusub yihiin xogaa waxay leeyihiin waxaan meel sarcaad baa la sameyn karaa laakiin waxay ogaan doonaan marka guriga ugu horeysa dhisno insha Allah bil kariim aad iyo aad baa mahadsan tahay engineer Cabdulqaadir kaasina wuxuu ahaa maamulaha shirkadda Tower Engineering oo magaalada Gaalkacyo ka hirgelinaysa xaafad cusub taasoo lagu magacaabo Wacan Village aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa